Hello everyone, kusoo dhawaada waa Yusuf Xaaji at Xaaji Daily. Maanta waxay la joogaa Cabdiqadar. And headline-ka ad aragtiin waxaa ku qoran Uber Lyft offline. And iyo waxaa ku qoran Minneapolis St. Paul Airport. inay ka dhici doonto in Minnesota صح in Minnesota. وعليكم السلام, welcome. 80 miles $47. صح معها maanta oo maalin sabti ah. Please haddaad barnaamijkan hadda aad daawanaysid we're gonna do this program in two ways. We're gonna do English and we're gonna do Somali, but we're gonna start with Somali today. So if you want to know what we are talking about in English, stay. I'll probably have a lot more to say in English as well. And waxaan rabaa inaan ka hadalno arrin muhiim ah. Arrintaas oo ah banaanbax oo lagu sameynayo Uber iyo Lyft magaalada Minneapolis maalinta ay tahay January 11th 2024. waqtigana uu yahay horta isla maalintaas programka waa laba maxaa lagu dhahaa laba qaybood isla maalintii la sameynayo laba qaybood isla maalintii la sameynayo. yes ninka sheer buu ku jiraa adduun weynuhu gaarsiinaya meexuu ka gaarsiin karo groupyuu dhexgelinaya. That's why it's okay waxa weyn maaha. laba si baynu Yusufow u sameynaynaa mudaharaadka. sax marka hore horta waa maasanta inaad showga igu soo dhaweyso showga adaa iskale niyo inaan darawaliinta iyo dadweynaha la hadallo. sax laba si ayaanu rabnaa inaanu wax u sameyno haddii ilaahay yiraahdo khamiista soo socota weekend dhalan doona 1 o'clock airportka la isugu imanaya 1 o'clock waa 1 duhurnimo. darawaliintu waa wada ogyihiin waana sugayaan iyagaa diyaara ilaa iyo 4:30 meeshaanu joogaynaa. flyerska la qaybinayaa informationka iyo wixii xaaladii waa la iska wareysanayaa. wixii loo gaaro 4 ayaa waxa la aadaya ama 4:30 airportka. marka hore waa laadka Uberka iyo Lyftiga lagu sugo 4 ama 4:30 wixii laga bilaabana airportka la tegayaa xagga sare ee berigii hore Uber iyo Lyftiga dadka laga qaadi jiray. qof walba dadku waxay sameyn karaan Kabul 3-4-5 intay isu soo raacaan oo gawaadhidooda baarkinada fiican soo dhigtaan ee freega meelaha airportka u dhow ayay isu soo raaci karaan. annaga waana la soo wici karaa waxaan caawin karnaa qaadi karnaa. ninkii doonana maadaama waxaan volunteer tahay maadaama waxaan common interest oo dadka dhan ka dhaxaysa qof waliba gaarigiisa short term parking-ka oo blue iyo waxaas uu ku parking gareysanaya waa $18 meelaha. marka waa dan inoo wada taala waa wax ina wada sugaya hawl aan ku hurayn horaa loo sameeyaa Soomaalidu ku mahmahda. waka xaaji wa alaykum salaam. qof baa dhahay assalaamu alaykum soo dhawow Kampala qof la yiraahdo aad buu noo taageeraa. Thank you very much. waxaan u maleeyaa waa qof anaga naga mid ah asxaabta u maleeyaa. yes but hadaan by the way WhatsApp group baan leenahay oo hogaamiye halkan fadhiyo. WhatsApp group moogtahay waa meesha haddaad rabtid informationka aad rabtid inaad ka heshid organizingkii iyo isdiyaarishkii iyo horta intaan programkan hadda ninkan aan la soo galay af Soomaaligayga waa hagaagsan yahay sidii horaana ma aha. aad iyo aad baan wax badan baan bartay and so luuqadana waa aad bay igu hadag sidii horaana ma aha. waa ku baaskareey imtixaanka waa dhaafnay masha Allah. yes aad iyo aad u mahadsantiin. Thank you very much Cabdi Yare iyo dadka kulina taageerayo. And why aan programkan aan u sameynayno why halkan u joognaa Cabdiqadaro waxaan halkan u joognaa Soomaalidu waxay ku mahmaahdaa war la helaaba waxaa tala la helaaba war la hel. marka hore tala markaad hesho Faisal wuxuu leeyahay sidee aan isku dari karaa WhatsApp groupka numberkaaga waxaan ku qorayaa Faisal oo numberkayga 612
8197901 hoostana ku soo qor please hoostaas ku okay soo qor haddaan soo qorayaa isu ma adiga waa ku soo qori kartaa anigana waan ku soo qori laakiin aniga telefoonkeyga xag u yaala so adiga ku soo qori kartaa nambarkaada laakiin nambarka qoro 612 qofka meeshan ha daawanayo qor meesha ku qor 612 commentka ku qor 612 819 79 01 612-819-7901 صح حمزة عثمان حمزة وكسو دوين والله welcome حاجي وحدا حاجي وعبد القادر hey guys what's up hey what's going on Chacharito waxaan ku soo share gareynayaa hola WhatsApp cómo estás lambarkayga idinku soo dira annaga idinku darayna bahalka dhiga hada aw ma haysatid kiyo dhiga gashanaysa waa haystaa bas galiga kama codaha meeshaas kama qashide Assalamu alaikum. How are you? Welcome. Haji is here. Thank you very much. Wa alaikum salam everyone. And guys, we are here. Maanta arin muhiimad meeshan u joognaa. Abdulqadar uu naga soo qayb gali doona. And waxaan sameynay horta the beginning. Abdulqadar halkiis uu dhameysanaya. So intaas yar waxaan dhahay bahalka dhagaha gashada. Maxaad sorry. maxaa laga hadlaya okay sugu waxaan waa maqli doonta wixii laga hadlaya dhib male soo dhawow what's going on man nothing much my friend we are here and we have a lot of audience that speak Somali and English and a little bit of Spanish I do speak so to answer you my friend because you asked me in English and anyone who's listening and want to know and curious so we are talking about a protest that we are organizing against Uber and Lyft at the Minneapolis International Airport. This is going to happen on January 11th, 2024, between the hours of 1 p.m. to 7 p.m. So the program is in two. The first part of the program of our protest starts at 1 p.m. Starts at 1 p.m. Until 7 p.m. We are asking all the drivers to go offline. No one is getting picked up from the airport. So we're going to go offline. Second, it will be 5 to 7. We have a permit to protest peacefully at the Terminal 1 arrival. And there's an area that we are allowed to gather. And so that is the second part of our program for the day. So all this action is going to happen on the 11th, January 11th. That is coming next week, Thursday. So I wanted to answer that. So I hope I got that. So that's what we're talking about here. We're going to be speaking to English-speaking Uber and Lyft drivers, and we're also going to be speaking to Somali Uber and Lyft drivers here. So we are a diverse collective groups of drivers that are here in Minnesota, and we want our voices heard. And we are fighting for fair pay. We are fighting for Uber Lyft driver protection. As you know, we have lost a lot of drivers due to violence that has been ongoing here in Minneapolis and many areas around here, especially targeted violence against Uber and Lyft drivers. You guys have seen that so many times. So we're looking for that. We're looking to stop unfair deactivation. You know, a lot of drivers get deactivated for no reason. Sometimes they're not even told why they've been deactivated. So those are some of the. But the number one thing is the pay. How much the Uber Lyft drivers should earn in Minnesota, and so we're trying to get that voice heard. So go ahead, Abdi Kudar. xaaji baa si wacan idinku sheegay sababta aan mudaharaadka u samaynayno telefoonkana u damanayno waxa weeye in aynu dhibka aynu ku qabno Uber iyo Lyft tusno dowladda tusno Uber iyo Lyft laftigooda waxaa arintan ka horeysay Happy New Year-kii December 31st-geedii 31 bishii 12 dhamaatay 1 o'clock kowda duhurnimo ilaa iyo 6 subaxnimo ee Monday-dii sanadka cusub telefoonada waa daminay dareewalinta guryahooda joogeen suuqa aad baa looga dareemay dadkii wax qaadaa la waayay marka horta culaysku habeenkaas soo bilowday waxa ku xigta hadda hawshan aanu qaban qaabinay waxay Soomaalidu ku mahmaahdaa ilmaha yar hadaanu hadlin ama ooyin hooyadii wax ma siiso way qadisaa basically haddaadan hadlin cid ku hadlaysa ma laha gaariga adaa iskale telefoonka adaa iskale berigii hore ninkii taariikhda ogaaba garanaya 2014kii ayay qoladani meesha timi Uber iyo Lyft xilligaa waxaa jiray gawaari badan oo brevet iyo company leeyihiin oo tagaasiya waxaa jirtay limousino anigu waxaan lahaa taxi waxaan lahaa limousine Yusufo suuq waa fiicnaa hal mar uun baa Uber kan yimi iyo Lyftigu
waxay bilaabeen inay dadkii soo dhaweystaan inay telefoon iPhone 5 ah dadka siiyaan oo internetku free yahay lacag fiican baa lagu shaqaynayay $1.96 xilligaa waayo taxiga mar walba qaali ahaa oo almost $3 buu taxigu ahaa $2.75 marka si ay taxigiina uga hooseeyaan dadkiina u yara qanciyaan meel dhexe istaageen muxuu marka caqligu muxuu ahaa in lacagta halkaa lagu hayo in kor loo daro oo dareewalka wax loogu kordhiyo mooye inaan hoos loo dhigin 10 sano ka bacdi 58 cent ba hadda dareewalku qaataa 58 cent gaasku wuxuu marayaa halkii gaalaan $2.89 to almost $3 ha ku soo qof ayaa ku qoray wuxuu dhahay low prices will help the riders. We understand once fahansannahay and we are families. We have families. We have we know the value. We know the weight of especially now the inflation. 2, the cost of living is very high. Understandably, we don't want to put any extra cost on people of Minnesota. That's not what our intention is. But you should also know that it's not us who are charging these prices. It's Uber and Lyft. It's not the driver. It's not our choice. If we had a choice, we'll make a deal with the people of Minnesota and give you guys a very good deal. But we are not in charge of the pricing. So it's Uber and Lyft that are in charge of the pricing. Those are the people that we should be pointing our fingers at, because what they're doing is they are extremely charging the customers, and they also end up paying very low to the drivers. And so who ends up taking advantage of the technology? It's Uber and Lyft. They are the biggest beneficiaries. They are the ones who are making money, most of money. So you're looking at a company that is valued around 60 billion and another one valued around 30 billion. So you can imagine how much money they're making. So it's not us. I mean, if we were in a position to really set our price, then it will be a different ballgame. You can blame us. I mean, all the drivers here, So I wanted to answer that in English. Okay. Ana Soomaali baan idinku sheegayaa walaalayaal sida xaaj idin sheegay darawaliintu family bay leeyihiin caruur bay leeyihiin dad ba Afrika ka jira waa dad bil aadana kiray bixiyaan insurance bay bixiyaan wax walba oo qofka bil aadinki bixiyaan ma fahmaysaa sida markay tahay annagu customerka inaanu xaqooda qaadano ama lacag extra la charge gareeyo uma socono hadda proposalka aanu wadano hadaanu darawaliinahay waxa weeye wax fair u ah darawalka iyo customerka waxaanu rabnaa darawalka waxa customerka waxa laga qaadayo inay noqoto wuxuu awoodi karo customerka waxa laga qaadayo wuxuu awoodi karo laakiin maxaanu rabnaa customerka waxa laga qaaday in wixii aanu xaq u lahayn la siiyo anigu maanta qof baan qaaday $29 baa laga qaaday $12 baa laga siiyay arintaas cadaalad maaha almost $30 baa customerkii laga qaaday anigana $11 baa la siiyay customerkii waa dhacan yahay oo wuxuu moodaya in aanu lacagtii qaatay aniguna ma qaadan Uber iyo Lyft baa dhexda u fadhida marka dadku hadda waana fahansan yihiin waa ku mahadsantiin su'aasha aadna weydiiseen laakiin anagu customerka dib uma keenayno wax oo extra charge uma wadno midda labaad hadaanu dareewalnahay ma arki karno customerka wax laga qaado Uber iyo Lyft transparency ma jirto hadii $100 laga qaado ma arki karno inaan anagu weydiino mooyee mararka qaar kood wax dhacaysa customer careysan baa ku soo galay wax ku oranaya lacagtan qaaliga maxaad ii charge kareynaysaa waxaan ku niraana anagu bahashada kama qaadno lacagta we have no control over the price. Malihin software-ka ma maamulo shukaanta aan baanu haynaa dareewal baanu nahay qofkii intuu dagu koranaya raalli ahaa waa ka xumahay waxba laga yaabaa waxba ka daran the worst thing anigana English ku hadlayo the worst thing waxaad arkaysaa adoo dareewal ah you're driving and someone asks you so how much do you get paid yes. Or a conversation you ask yourself, you say, so as you become friends with the some of the passengers or some of the riders, you become friends with them on the way. You have a 15-30 minutes ride, right? And you become friends with them and you start having a great conversation. And then you start talking about pay and how much you're getting paid, you know? Yes. And then you ask you ask the rider how much they were charged by Uber and Lyft. Yes. And then you find out they were charged $40 and the driver is being given $15 or $18.
You know, see, this is some of the conversation we have, serious conversation we have with some of the riders when we're talking. Because, you know, 30 minutes drive or 15, 20 minutes drive, you get to know people a little bit. You get you know, you become open to them, especially like me. I know I'm very social and I open up people, you know, I talk to them. And I'm sometimes too, I want to know, I'm curious, like what was the charge? How much did Uber or Lyft pay you? That's the question. And they end up telling me, oh, man, they charged me $60. And I'm like, what? I don't want to say the word, but I end up saying something like, you know, $18, $20 out of that $60. So they're taking 65, 75% of what they charge to the customer. So go ahead. marka dhibaatadu waxa weeye customerku waxay moodayaan in dareewalkani controlo wax meesha ka socda marka walaalayaal anu ma controlo gaariga un baanu wadnaa gaariga un baanu wadnaa gaariga un baanu wadnaa marka walaalayaal waxa aanu u sameynayno mudaharaadku waxa weeye inaynu helo lacag dareewalka ku filan lacag dareewalku ku noolaan karo waxaynu kaloo rabnaa Uber iyo Lyft in sharciyan waxa ay customer ka qaadayaan la arko dareewalkana xaqiisa ay siiyaan waxa jira dareewalin iyagoo gaarigii wada xabad lagu dhuftay qaar shil ku dhinteen oo aan xaq helin xaq ma helin compensation ma helin Uber iyo Lyft familiyadoodii may wicin ma garanaysaa waxaa kaloo jirta governorka berigii last year biilkii aanu geynay wuu dilay waa biilkaygii veto ku qabtay waa biilkii ugu horeeyay dad madoowa dad Soomaaliya dad East African lahaayeen dhowr bilood ka bacdi 2 bilood ka bacdi 3 bilood ka bacdi Minneapolis mayor baa sidoo kale veto gareeyay dareewaliin badan baa waxay jeclaysteen inay mudaharaadaan oo mudaharaad sameeyaan waa maasanta xaaji ay mudaharaad sameeyaan waxaan ka sheegnay xaaji sababteen waxaan wadno inay mudaharaad sameeyaan arintaas ma suurta gelin laakiin dareewaliin badan baa jiro oo list qoray oo hawsha abaabulay may dhicin airportko kale 2 sano waxay dareewalintu jeclaayeen in la mudaharaado oo Uber iyo Lyft lagu mudaharaado iyo MSP may dhicin mar walba waxa la oran jiray waxaan u baahanahay barmidkiina ma heli karno dareewalintu waa niyad jabeen wadankan waxa jira sharci qofka citizenka ah uu xaq u leeyahay meeshu doono inuu ku mudaharaado wuxuu doono inuu sameeyo oo si nabad u hadlo haddaanu nahay dhalinyaradan hadda hawsha wada xaaji aniga rag kaloo naga maqan galaangal badan baanu sameynay dadaal baanu sameynay waraaqdii barmidkii airportka MSP waa soo helay dawladda iyo booliisku waana siiyeen alxamdulillaah rabbil caalamiin xaq waxaan u leenahay waxa aanu rabno inaanu gudbino si nabada dareewaliin badan oo qoostay ayaa markaanu waraaqdii u geynay oo tusnay yiri waa mahadsantihiin mar hadiiba sharciina loo keenay aan ku mudaharaadno waa mudaharaadina marka walaalayaal ninka Uber wada ee Minneapolis jooga ee airport ka shaqeeya ama ka shaqeeya banaanka khamiista 1 duhurnimo ilaa iyo 7 fiidnimo abku waa dansanaanaya waynu daminaynaa hadii ilaahay yiraahdo 4 galabna wixii loo gaaro airportkaynu tagaynaa 5 ilaa iyo 7dana newski baa imanaya press conference meesha ku qabanaynaa dad badan oo 100 gaaraya imanaya waxaan rabnaa qof walba maalinta chance baa ku furan maadaama waraaqdii aad muddo ay lagu keenay maadaama dhibaatadu inuu wada hayso oo nin waliba uu $5 qaadayo sidan ayaynu Uber iyo Lyft kaga adkaan karnaa qof su'aalo badan weydiisan su'aalo badan weydiisan qofkana de asagoo hadlayo and this program is in two form. I keep speaking in Somali too, but this program is in 2 ways. So we're speaking, Abdul Qadir is speaking in Somali and I'm speaking in English, so we can have both audience follow what we're doing. And because we have a diverse group of drivers all over Minnesota, it's not just Somalis. Of course, Somalis make a big number of drivers for Uber and Lyft, but there's other communities too. We have communities from Kenya, from East West Africa. There is a lot of Latino community who are drivers. We have a lot of white dominant group drivers too that are also drivers. We have our brothers from
East Africa, a lot of countries who are doing this. A lot of immigrants, really, a lot of immigrants, from Middle East, from Asia, everywhere. They are really, really dependent on this job. Not only them, but also families. We're talking about people that have part-time jobs, or full-time jobs. So they do Uber and Lyft for part-time on the weekends, just to make ends meet. And you have people who are trying to save money to go on a trip. We have families as African immigrants that are in Kenya, they are in Somalia, they're in Ethiopia, they are in many parts of Africa, and we want to send money back home. Sometimes we don't want to take it out of our own family budget, or for our family business, and we just want to put in 3 days a week just to do Uber and Lyft and make money and send it back home. So a lot of our community here in Minnesota, Black community, Latino community, Asian community, a lot of immigrant groups depend on this job to make ends meet. So they use this Uber and Lyft as a way, as a way to support their families here and support their families back home. And so this is very important. This fight is very important. It supports, it's a network of support across Minnesota. What does that mean then? What does that mean when we get more money? When we get a little bit more than what we are getting now? That means that each driver, and this is a huge number, you're talking about 6,000-7,000 drivers here in Minnesota. We're talking, what's the benefit if they get more money? That means they're able to spend more on a local community-owned restaurants. Like he can go to Kuruhlo, he can go to Durdur, he can go to local Somali or Ethiopian or Kenyan or African or local community. So you are investing back. So if you help us get this passed, if you help us get more pay, that money is not just going to the families of people who drive for Uber and Lyft only, but this benefit is cross benefit. What I'm talking about is cross benefit. And they say trickle down, trickle down, which, I mean, some people have given that idea a bad name, but I am not going to go there right now. But we're talking about when you pay, this Uber and Lyft drivers make a huge number of communities of immigrants here in Minnesota. Not only them, and so if you pay them well, if you pay them fairly, if you take care of them, that money is going to go to the community. That money is going to go to your local restaurants. That money is going to go to your local schools and madrasas and places of learning. That money is going to support families and children back home, in Somalia, in Kenya, in Ethiopia. So this is a big deal. But not only us as Africans, but also our Latino brothers and sisters, from Mexico, from Guatemala, from Ecuador, from all these, communities. They get more money. That means they invest more on Lake Street. They go buy food on Lake Street because food is expensive now. It's not like before. You go eat 3 people, it's close to $100. Haircut alone now. I cut my hair now. So I'm sorry to say that. But this is what we're talking about. This is important for you guys to support some of the Uber and Lyft drivers. Go ahead. Haji, waxaan intaa kuugu darayaa dhowr su'aalood baan hadda akhriyay intii aad hadlaysay. Walaalayaal, horta Uber-ka iyo Lyft-ga dadka wadaa intooda badan waa dad business leh, waa dad shaqooyin kala haysta. Anigu shaqo full time aan haystaa, business baan leeyahay. Xaaji full time buu haystaa, business buu leeyahay. Macnaha tani shaqo quran ma aha. Gaaladu waxay tiraahdaa extra supplemental. Waa dhaqaale ku soo kordhay. Waxa wada Xaajiyow nimanka iskala xalaalada dhammaan Soomaalida iyo Afrikaanka xalaalada leh xalaalkooda markay ka soo baxaan way ku turtaan. Isagoo xalaalka iskalo share kule oo lacag ka qaadanaya ayuu kan soo galayaa wigi hadduu 500 ka sameeyo, hadduu ka badan ka sameeyo, biilashiisii Afrika iyo wuxuu ku dabir lahaa ku bixinaya. Waxa kaloo wada waanu aqaanaa dad dhaqaatiira oo Soomaaliya, dad lawyer ah, dad macallimiina, dad PhD haysta Uber-ka wada. Horta khalad yaan laga fahmin. Talabaad walaalayaal, macalinka dugsiga wada markuu caruurta u dhigo uu soo baxo halkuu maqaayad ama meel kale aadi lahaa 2 saac buu galayaa wuu shaqaysanayaa. Annagu hadda marka maxaanu u wadnaa hawshan abaabulka ah dadaalkan aanu rabno in nolosha dareewalka la bedelo maxaanu u wadnaa? Jawaabtu waxa weeye
dadkaas aan idiin soo sheegay oo dhan waxay u baahan yihiin dad advocacy oo u hadla waayo waxyaalo kale haystaan nin waliba nolol kale biisu ku yahay danta guud qof 2-3 group baa bilaaba oo hawsha isxilqaama danta guud lagama wada shaqeeyo qaar ba hadda aanu isdaqaana waxay ku leeyihiin war waxa waqti uma hayo ma geli karo annagoo intaasoo hawlood aanu sheegnay leh oo shaqo kala haysana oo business haysana wax walba haysana haddana waa 12 habeenimo waanu idinla hadlaynaa information baanu siinaynaa maxaanu rabnaa macalinka ganacsadaha ninka shahaada PhD haysta booliiska ninka wada ninka dhakhtarka ah marka uu shaqadiisa ka soo baxo aniga iyo xaaji oo kale dhamaanteen marka aan shaqooyinkeena ka soo baxno inaan Uber iyo Lyft gallo 2 saac inaan 200-300 ku samayn karno sidii barigii horeba hadda marka aad 10 saac wadid ayaa laga yaabaa inaad $100 samaysid waxaweye dadka dhalinyarada magaalada joogta ee Uber iyo Lyft-ga wada qof walba caaw hadii halkan la keeni lahaa wuxuu idinka sheekeyn lahaa khasaaraha uu ku jiro caaw xaaji waxa la soo diray fair 2 saac iyo bara $109 buu ahaa waa kula share gareyn karaa waan reject gareey ma qabsan waayo 2 saac iyo bar baad sii soconaysaa $109 baa lagu siiyey hadhow soo noqodka adoo maran oo MTA soo laabanaysaa gaas baad u baahan tahay 2 saac iyo bar waa meel fog weey qofkii kafee buu iibsanayaa matalan marka uu xisaabtamo 0 buu ku imanaya 0 marka walaalayaal sababtaas aanu u kaliftay inaynu guuleysano talabaad oo muhiimka ah waxa weeye Afrika dad baa inaga jira waayeel dad wax maaragtay walaalada ehelkaagii way ku soo wacayaan shaqadan ama taxi ha noqoto ama Uber iyo Lyft ha noqoto waa lacag cash oo jeebkaaga kugu jirta caawad $100 shaqeynaysaa qofkaagii baad u diraysaa $100 baad samaynaysaa caruurtaadii baad macnaha ma sugaysid paycheck jimcaha dambe ku imanaya emergency money. It's emergency money you make quickly. Yes. You know, if you have Uber Lyft, it is $100 you make quickly. yes You know, you'll be there for 3 hours or sometimes 4 hours. You make that money, you send it back, you send it to someone. You know, actually, sometimes that's what I do on the weekend. You know, I do have family sometimes that want something, and I understand things are tough. You know, so I get on it and I do. I don't want to get it out of my budget. I don't want to get it out of my business. I don't want to get it out of anyway. I just want to, and also it gives me time. Also, I like talking to people. I'm very social. Like I said before. I find it fun when I sit and I, have a conversation with a lawyer and I ask them something about a law, or when I'm having a conversation with a psychologist, or I'm having a conversation with a businessman. I have picked up people who are extremely wealthy. I've taken people to private jets, and I've, had this conversation, how they make money. That 15-20 minutes or 1 hour, 30 minutes ride, but that does not equate to making us better. It doesn't make our pockets better. It doesn't make our, we just, and then, you have to understand the expense that goes into maintaining the vehicle itself. You're talking about, you got to fix everything. Anything. Right now, if something happens to my car, I cannot go on the road. I have to fix it. And that comes out of my pocket. The gas. How much you pay for petrol. So the people, audience that are watching us from Kenya, how much you spend on the petrol, How much you spend when you have an accident. Let's say somebody hits you and it's not your fault. You have to pay $2,500 before Uber and Lyft even pay to fix your car. That is out-of-pocket expense. That is deductible. That's how much you will pay. $2,500, And so you can imagine you're putting so much miles. That means if you put so much miles on your vehicle, you have to do frequent oil changes. That is another $100, every 3 months that you got to put in, oil change. You got to do oil change. You got to replace the tires. You're driving so much miles. And I'm talking about the people who drive full time. Not me. I do part time. But I'm talking about, some of our community that drive full time, and that is what someone gets a 2024, Toyota Highlander and they have it on the road and they got to make a payment on it. Okay, there is people that rent vehicles to Uber and Lyft drivers that, and so what happens is they pay how much? $350 a week? $350 a week. $350 a week. So, do that times 4 weeks. That's how much a driver who has rented a vehicle has to put in so much work just to pay to rent for the vehicle. waxaad ku darsataa marka aad gaari soo kiraysato ama Lyft ka kiraysato ama Uber ka kiraysato through the rental car
oo Ifis iyo Hertz iyo kuwaas labada company kuma wadi kartid haddaan matala anigu horaan u kireystay Uber baan ka kireystay Lyft kuma wadi karayn kuma wadi karayn raalli hada marka qofkii 300 dheeraad buu bixinayaa hal company buu ku shaqeyn karaa fiiri waa khasaare waxaan kaloo rabaa inaan idinku daro hadda yar waxa Columbus jooga wuxuu inoo soo qoray 8 saac baan waday maanta $120 baan sameeyay waa runtii you see markhaatigii waka halkan sidoo kale 10 saac 8 saac wada Saeed, we will answer your question. Apologies, sorry, but I cannot interrupt him when he's making a point. So we will answer your best questions. Yes. So please, we want you to repeat those questions. So by the time this thing goes up and scrolls up, I'm not able to see. But please keep repeating your questions so that I can see and then we can answer it. And we will get to that point of answering the question. Inshallah. Wa ma santa haji. Waxa kaloo jira yar kala hadda wuxuu ina weydiiyay Uber iyo Lyft ka fiican. Labada company magacuun bay ku kala duwan yihiin mooyee waxay isdhaamaan ma laha mid walba 58 cents ku siinaya hadii hadda yar aanu saaxiibano inala shaqeeyo shilbu maan loo galay waa laga gardarnaa gaarigiisi markii la qiimeeyay 3500 meelaha 3600 baa la yiri 2500 buu jeebkiisa isoo ka bixinaya 1500 ama 1600 ee hadhay ayay Lyftigu bixinayaan fiiri cadaalad ma aha bishii waxa laga yaabaa inaanu samaynba lacagta barigii hore ee taxiga iyo limousine-ka iyo deductible-ka haduu u bato $1 buu ahaa hadda qoladani cirkaasay galeen wax walba way qaali gareeyeen gaarigaaga haduu 5000 qiimihiisu noqdo dibka gaadhay matalan 2500 baad jeebkaaga ka bixinaysaa waxaan kaloo rabaa inaan idinku daro walaalayaal dadka rent-a-car-ka wata kulli aniga fikradeeda weeye wax faa'iido kuma qabaan waayo anu waan soo waday wiigii dhowr boqol baa laga qaadayaa 300 350 400 inta ku dhufo waa 2000 iyo xoogaa 2000 iyo xoogaa markaad samayso wixii kaaga soo hara ayaad faa'iidadaada u qaadanaysaa hadda u fiirso ayaad faa'iidadaada u qaadanaysaa gaaskii baa ku dheer qofka waxa dhaama rent-a-car-ka qaadanaya inuu gaari dealer ka soo iibsado isagu leeyahay oo hantidiisa investment ah suuqu hadda sidan oo kale waa caajis waa yar yahay shaqo fiican ma jirto marka aanay shaqo jirin de wax kugu taagan oo ku khasbaya ma laha laakiin shaqo markay jirto lacag fiican baad samaynaysaa haddii gaari rent-a aadan wadan ma khasbanid haddaad laakiin rent-a-car wado ma nasan kartid ma fadhiisan kartid hadda waxyaalaha aanu dadka aad uga wacdayn waxa ka mid ah ragga rent-a-car-ka wata waxay ku oranayaan waxba igu taagan gaariga ma joojin karo waa wiigiiba 400 laga rabaa marka walaalayaal waxa samaynaysaan su'aalihiina waa ka jawaabana sida xaajidiin sheegay laakiin annagu waxaanu rabnaa hadaynaan mid noqon hadaynaan danteena u midoobin dhalinyaro waxaan garanaya xaaji oo lagu yiri gawaaridan joojiya caafimaadkiinu khatar buu ku jira waayo qofku markuu 10 saacadood wado xataa dad baan break qaadan karin waxa kaloo dhacda customer baa soo qaadaysa kalarkaaga ama meeshaad ka timi buu ku weydiinayaa inaad madow tahay uu ka arkayaa Soomaali markuu ka dego waxbuu ka qoraya akoonka waa laga xidhaya dad baa maalayacni looga xidhay walaalayaal waxa sameeysan hadii aynu isku mid noqono hadii aynu danteena u midoono hadii aynu telefoonka waa ka adagnahay damino oo mudaharaad ka nimaadno oo dad badan yimaadaan Uber iyo Lyft iyaga miiska imanaya way nala hadlayaan xoranayaan war akhyaaray waxaad rabtaan baanu sameeynaa sidii gobolada kale dibka joojiya nala hadla The question I'm getting is how can you assist people in Africa? I cannot. I'm not in Africa. But when I come to Africa, I will help, definitely. I will try to be a voice for people in Kenya as well. And that time will come. Don't worry. It's going to come very quick. And hopefully, everybody has a timeline. I'll wait for my time and things will work out. By the way, I have no control over what is going to happen tomorrow. So everything is in what I believe in. I believe in God. I believe in Allah. So all my... everything I plan, Allah is the best planner of all. So I will leave it at that. But I intend to help as many people as I can. Given an opportunity, I will do that anytime. I will fight for you. And I miss you too, brother. Everyone there. Sister Omar, I can't believe you're still in Minnesota, mashallah. Yes, we are long time. Sister, I don't know. There's no sister here, but we'll try our best. I hope you remember me. I don't, but you can definitely... get a hold of me and we can have this conversation privately somewhere, inshallah. You're welcome. We don't have credit cards. Tas nugu kalifayso
kirada ugaas maxaad ka wadaa and taas adaa weydiini ma kuma fahmin St. Cloud okay right St. Cloud all right I'll be rich only God yes you'll be rich that is you gotta work hard you gotta be smart you gotta find a way you gotta start making plans if you're young especially the young people don't waste time think about how you can come up with the best business idea that you have. But you have to try so many things and you have to fail so many times for you to be successful. But that's not what we're going to talk about. You guys talk for Uber drivers in Minnesota. What about the drivers in Columbus? Well, you have to invite us. حفلة نقبت. واني ماننا program and you know hire us we work for you we will definitely do that you know we don't want to charge you we'll be free but you got to pay for our hotels at least in our hotel and our, you know we got to do that for a whole week can you do that we can definitely organize you know so yes we can give you ideas we can you know and anyway you invite other politicians to come why not us we're beneficial to you guys so you know whatever this community in Seattle in Columbus in California whatever and we're gathered and we're together then we can come and help you guys organize and definitely do that. We have a nationwide group that we work with. It's called Rideshare Offline Movement. That is another group that we're working with. So definitely we can connect you to them and you can invite them. They can come to the show as well. So yes, why not? No, why not? Even in Kansas, yes, why not? Invite us. We will come. We will come and help you organize and give you ideas and get you guys organized. We'll help you with the law. We'll help you how to get your permits and how to organize yourself so that you can go out and fight for yourselves as drivers. So there's a lot of there's a lot you can do. You know, there's a lot you can do. We have some idea on what we can do, and we can definitely share those ideas with you anytime. I'm becoming rich from myself. Okay, that's fine. waxaan rabaa xaaji inaan ku daro Yes. sida xaaji idiin sheegay movementigan waa movement weyn ururkan aad buu u shaqaynayaa siyaasiyiintii dowladdii meel walba waxa weeye waa la hadalay waa warkii waa gaadhsiinay rajadeennu aad bay u fiican tahay gobol walba aad joogtaan nala soo xidhiidha tiktakti waad haysaan telefonadeedu waa soo gelinay sida xaaji idiin sheegay invitationka noo soo dira wixii aanu anagu soo marnay iyo wadadii aanu soo marnay waa idinla wadaagaynaa insha Allah waa idin fudaanaysaa hadda sanad iyo bar baanu biilasha ka daba wareeganaynay meel fiican baanu gaadhnay biilkayagii markii uu governorka yimi ayay governorkii fiito gareeyay house-ki waa soo dhaafnay sanadkii waa soo dhaafnay insha Allah waxaan rajaynaynaa hadda wixii aanu marnay inaanaan marin haddii aanu abkan iyo waxaan damino ku guulaysano caqabado badan baa jiray oo abkan loo damin waayay oo mudaharaadka loo diiday dad badan baa jiray oo governorka la shaqaynayay oo darawaliinta lahaa ha daminina waxaan ha samaynina macnaha hadda wixii ma jiraan hawshii waa isbedeshay movementigii wax badan baa laga bedelay khadaad badan oo dhacay waa la saxay walaalayaal marka hadda insha Allah waa guuleysanaynaa Uber iyo Lyft iyaga jilicsan matalan maalinta dhow markaanu damino iyagu billions bay khasaarayaan anagu 100 ama 200 baa laga yaabaa darawalku inuu khasaaro hadda aanu idin la hadlayno ragga shaqaynaya ee gawaarida wada $6 bay gurayaan anagu offline baan aadnay idinka idin la hadlaynaa waxaan rabnaa waxa jira inaanu idin sheegno taladiina qaadano gobol walba aad joogto nala soo xidhiidh waa idin caawinaynaa waa guuleysanaynaa aan gacmaha isqabsanno haddii la hayraad ku soo xaaji And what are you guys up to? Well, what we are up to, my friend, I'm going to tell you right now what we are up to. Thank you for joining us today. I really appreciate it. This program is in two, some English and Somali. We're going to get it down. We're going to break it down and tell you. First, we are organizing a protest against Uber and Lyft at Minneapolis, St. Paul International Airport. The date is January 11th, 2024. The time is 1 p.m. to 7 p.m. And then there's going to be two parts for that one day. Part one is we're going to be offline as Uber and Lyft drivers at the airport from 1 to 7 p.m. And also, we have a permit to protest at Terminal 1. There's a space for protest. And we're going there we're starting at 5 until 7 p.m. So spread the word, share this, let everybody know, all the drivers. If you're from
the Latino community, if you are from the Asian community, if you are from the African communities, if you are from you drive for Uber and Lyft, you drive full time, you drive part time. If you're from Kenya, Uganda, Tanzania, Somalia, Ethiopia, West Africa, South Africa, Central, North, Latinos, Mexico, Uruguay, Paraguay, and Ecuador, and all this, Guatemala, all these countries, everyone, all immigrants mostly. If you are driving for Uber and Lyft, please let everybody knows we are going to be turning off our app on Thursday, January 11th from 1 to 7 p.m. and also protesting at Terminal 1 from 5 p.m. to 7 p.m. on the 11th. So please do support and help us. Do you believe Uber and Lyft will change when you guys... Yes, why not? This is what's going to happen. I will break it down to you, and my brother is going to speak in Somali after I'm done. We are your two hosts, Somali and English. This is what's going to happen on Thursday, the 11th, 2024. If all the drivers at the airport, because that's where most of Uber and Lyft drivers usually end up going to start the day or end the day. And we have around 6,000 drivers working at the airports at some given time in an hourly time, if you divide that in an hourly. And you have close to 10 to 15,000 passengers arriving at the airport. And usually the time of arrival at Minneapolis St. Paul is around from 1 p.m. until 7 p.m. Usually you have 8 to 9,000 people coming and flying into Minneapolis St. Paul International Airport. Now, if all these drivers decide to shut off their and go offline and turn off their apps and don't pick up any passengers, what do you think is going to happen? I am waiting. I'm waiting for an answer. Who can give me an answer? Give me an answer. What is going to happen if on Thursday from 1 to 7 p.m. all the drivers shut off their app? What is going to happen? Go ahead. waxa dhacaya hadii sida aan qorsheynayno darawaliintu nagu raacaan oo telefoonka la dimiyo appka la xidho airportkana la tago airport officialska maago kale markiiba waxay dareemayaan culays waayo airportka waxa loogu talagalay dadku markay yimaadaan inay ka tagaan lama rabo in dadku ay isku ciriiri dhaco diyaaraddu waxa la rabaa markay timaado inay mid kale meeshii gasho tii horena baxdo okay dadku haday tagi waayaan oo wax qaadan la waayo meeshii baa buuxsamaysa ciriiri baa dhacaya airportku waxa ma rabo waxa kale oo dhacaysa in mayorka meesha magaaladaas police chiefka governorka laftigiisa Uber iyo Lyft diyaaradaha dadka iskale Delta United Airways American Southwest waxa soo dhan qolada airportka la hadlayaan oranayaan way dadka loo qaadi way customerka iyaga ay wacayaan badala aanu marka hadda aan ama Afrika ka imaado ama gobol kale oo Mareykanka ka imaado $200 aan diyaarad ku imi haddaan Uber waayo ama Lyft waayo diyaaradiiba waxaan ku oranayaa maxaan raacaa abti ku soo qoray kuwana mucaarada waxa lagu helaa u sheeg adduunka mucaaradnimada wax lagu helaa hadii la waayo haday dadkooda muxaafid noqdaan oo dadku ay wada noqdaan dad iska daba socda waxba lama helo waxa la rabaa dad kala fikrad duwan waxa la rabaa dad waxa khaldan sheega oo indhaha dadka u ifiya waxa la rabaa dadka la hadla hadii aad walaal taqaanay dad aan hadlin dad iska aamusan adduunku waa isbedelay abti waxa sometimes dhacda Congress-ka Mareykanka nin baa 2 saac 3 saac nin baa hadda ka hor 8 hours hadlayay oo mucaarad ahaa freedom baa la siiyay ciidamo waxayn dadku meesha la isma dilo la isma waxeeyo afka lagu ciil baxaa someone asked have you sorry I interrupted good question have you invited the local media task jawaab waa maasantay walaale dhammaan local media magaalada noocay doontoba waa invite gareynay wayno imanayaan mid kale arrin kale jirta airportka marka aad barmi dalbato oo aad matalan mudaharaadka aanu qabanayno aad dalbato informationkaagi public buu noqonayaa dhammaan media meeshaas la shaqeeya email baa loo wada dirayaa marka anagu shakhsi ahaan aniga xaaji iyo ururka iyaga mulda members waa dirnay
casumaadii informationkii iyaguna way imanayaan yes dhammaan media oo dhan waa imanayaan I think that someone said I don't think anything happened because state of Minnesota they support Uber and Lyft and you're right. The governor of Minnesota supports Uber and Lyft because Uber and Lyft have money to give him to do campaign, to do, American politics is about American politics is about money. You can't run for office without money. You must have these big companies like Uber and Lyft supporting you. So yeah, you're right. People like Governor Tim Walz, they vetoed the first immigrant bill. I mean, it's immigrants because Uber and Lyft, most of the people who drive Uber and Lyft are immigrants, and so he's the first bill he has ever vetoed. So that means that someone has been on his ear telling him to veto the bill, and that is Uber and Lyft. So we know. That is why we're protesting against Uber and Lyft at the airport. So we can push back. So we can, peacefully do it. So that we can turn off our apps and people don't get to be picked up by anybody. And then this will get to the governor, it will get to Uber and Lyft, and maybe then they will change their mind and come to the table and negotiate with us so that all the drivers in Minnesota get the deal. Someone else asked, which group are you? There is no group here. There is no individual ego here. We are here for all Minnesota drivers, regardless of where they come from and who they are and what they believe in. We're representing our Latino brothers. We're representing our immigrant black brothers. We're representing our Asian brothers. We're representing everyone that is driving for Uber, businessmen, students, a mother supporting, using Uber, driving for Uber, sisters driving for Uber, everybody, the whole community. We're speaking for them. That's why we're here. We're not interested in getting a recognition. We're not interested in getting whatever you think you can think that we will get. Me, I have been doing this for 15 years. Nobody has ever given me an award, and I don't care. I don't want it. Well, you know what is going to make me happy? You know what my satisfaction is going to be at the end of the day if we are successful in getting more money for all Uber and Lyft drivers in the state of Minnesota? This is how I measure myself. This is what I am looking forward to. I measure myself by what they get as drivers. So because I know it's going to improve my community. It's going to improve my community's economy. It's going to improve my community well-being. It's going to improve and give more time to parents to spend time with their children. That is success for me. Success for me is not to get a building from Uber and Lyft. Success for me is not to get a promotion and money from Uber and Lyft. Success for me is not Governor Tim wants to recognize me as a leader of Uber and Lyft. No. Success for me is my African immigrant brothers, my Latino neighbors, everyone that drives for Uber and Lyft to get what is fair to them. That is my measurement. That is what I'm looking for. I am not here representing a group. I'm not here representing someone's ego, my ego, or because I want recognition. Hey, you can Google my name. You'll find me. You'll find me. I'm there. I already have what I need. So I'm here fighting for our community. The success, the collective success of our community, that is what is my measurement. That is how I'm measuring this. That is what my outcome is. My outcome is not to be promoted, to get a job with the governor. I don't care about the governor's job. I'm telling you, record this, give it to him, send it to him. I don't care. I want Uber and Lyft to take care of all of this community in Minnesota. That is what I'm fighting for. Go ahead, brother. soomaalida waxay ku mahmahdaa waxa umusha u wacan baa ilmahana u wacan soomaalida waxay kale ku mahmahdaa farquli fool ma dhaqdo annaga waxana soo kalifay waan mar walba idin la hadlayno ma aha urur hebel iyo urur hebel iyo urur hebel ma aha waxa laga yaabaa nin aqoontii leh waxa laga yaabaa nin waqtigii haya waxa laga yaabaa nin urur ka tirsan inaanu intuu soo fadhiisto wax ku sheegi karin dadka qof lacag ku siiya iyo qofka talo ku siiya oo kula taliya keeba fiican waxa la yiraahdo qofka kula taliya oo hal eray oo talo ku siiya ayaa wax walba kaaga fiican way lacagtu way dhamaataa annaga darawaliin baanu nahay waanu wadnaa part time dad bay full time u tahay wadankan gobolkan muddo badan baanu joognay taxi limousine aanu lahayn system ko dhan baanu naqaanaa Minneapolis u shaqaysaanu naqaanaa airport soo shaqeeyaan naqaanaa waxaanu rabnaa adduunka qof walba oo Soomaali oo magaalada yimaada
hadda kambaniyo badan baa xaajiyo shaqaale u baahan diyaaradaha airportka jooga shaqaalay rabaan warehouse-kii baa shaqaale rabaa dadkeenu waxay jecel yihiin freedomka waxay jecel yihiin inuu ilmihiisa iskuulka geeyo dugsiga geeyo gaarigan 8 saac wado maqaayadaha ka sheekeeyo gurigiisa aado laakiin sidii uu ku heli lahaa lacag fiican midnimo fiican protection iyo waxqabad fiican ma samaynayo haddii qofku isxilqaamo oo yiraahdo war anaa waqtigaygii gelinaya meeshan anaa mustaqbalkii wax ka qabanaya oo la xisaabtamaya dawladdii iyo dadkan taageer waxa laga yaabaa inay yiraahdaan qolaa soo dirtay qolu u shaqeynaya xaaji waxaan rabaa inaan kuu sheego waraaqda airportka permitka application baa loo maraa kolley hadda waan idinla shargareynaa intii dibad waa aragteen application baad buuxinaysaa waxaad ku qoraysaa sababta aad permitka u rabto ilaa waddanku markuu sharci leeyahay meel inta istaagto ma oranaysid qoladaasaan ka soo horjeedaa no waa inaad permit application buuxiso waa inaad sheegtid reasonka sababta aad u mudaharaadaysid waa inaad sheegtid xilliga aad meesha joogaysid waa inaad sheegtid inuu mudaharaadkaasi nabad yahay newskii baa imanayo waa lagu duubayaa wixii oo dhan baanu buuxinay waa la soo aqbalay process buu maray almost week baan sugaynaa asbuuc baan sugaynay waxa dhacday in maanta airportka dad dhalinyaro ah oo iska cadhaysan yimaadeen oo ay dadkii ka dhaadhicinayeen waraaqdan Uber iyo Lyft baa soo dhiibtayoo nimankan u soo dhiibtayoo soo fududaysay war ma kambanigii aad la dagaalamaysay ayaa intuu ku soo diro ku oranaya igu mudaharaad aniga waa maya waraaqda sharci bay leedahay dad badan baa laakiin xaaji ku farxay markay arkeen dad badan baa waxay yiraahdeen 2 sano ayaana lagu lahaa airportkan laguma mudaharaadi karo su'aalay dadku 2 sano isweydiinayeen muxuu kaga duwan yahay airportka Minneapolis St. Paul International airportada gobolka Mareykan Seattle Chicago Los Angeles Atlanta oo maalin walba lagu mudaharaado dadka su'aal waa loo waayay laakiin anagu maanta waxaanu sameynay jawaabtii aad 2 sano la aydeen baanu keenay su'aal waxa ku mahmahdaa afwa kana meel lagu aame macnaha afki waa kan maxaa lagu cunayaa hadii lagu yiraahdo koobka shaaha cab oo aadan cabayn laakiin halka uu yaalo macna badan ku sameyn maayo walaalayaal waxaanu idinka rabnaa idinka anagu cidna matali mayno cid u shaqeyn mayno waxaan rabaa anigu shakhsiyan iyo xaaji iyo walaalada kale maqan 2 saac markaanu shaqeyno inaanu 200 300 sameeyno oo waqtigiina yar yahay lacagna aanu sameeyno waxaan rabaa lacagta customerka laga qaadayo badan inaan xaqayga ka helo ilaa kullu Uber iyo Lyft baa qaadanaya iyaga kiib gareynaya waxaan rabaa gaarigayga hadii wax gaaraan inaan la iga qaadin 2500 waxaan rabaa qofka dareewalka ee maalin walba tigidhada bilaashka laga siinayo inuu helo xaq uu leeyahay inuu Uber iyo Lyft iskaga celiyo hadda waxa dhacda parking ticket caadi hadii gaariga lagu saaro waa laga xidhaya nima waxa jira background sameeyo oo la yiraahdo checkers dadka way iska xidhaan waxaanu kala walaalayaal hadda hawsheeda ku jirnaa insha Allah aad naga heli doontaan qofkii lawyer u baahan qofkii resource u baahan wax walba waayo wixii aanu soo marnay wixii aanu naqaano waa inaanu idin la wadaagno waxa weeye wax maaragtay kama dooni mayno inaad abaalgudna siisaan inaad aqoonsataan waleenahay magaaladii waana laga yaqaanaa waxaanu nahay waa la og yahay dar ilaahay baan u wadnaa inama nudcimukum liwajhi llahi la nuriidu minkum aayadii ahayd macnaha wax sharafa wax aqoonsiya wax abaalguda idinkama rabno waxaanu idinka rabnaa uun war aan dagaalka wada galno dadkeena dhiban haddii adigu aad 20 jir tahay oo aadan waxaan u baahnayn ama aad hadli kartid adeerka abtiga walaalka ka weyn ayaa wado airportka fadhiya oo aan luqadii aqoon oo aan Uber iyo Lyft la hadli karin oo aan airportka la hadli karin wixii baanu fududaynay hadda airportka wuxuu leeyahay dad lala soo xiriiro oo la yiraahdo dareewalkan ayaa wax ku dhaceen maxaanu qaban karnaa maxaad naga caawin kartaan sidhiga sidoo kale emailka hadda xaaji wadayaabasa waxa soo dhacaya newski maanta inuu soo wacayeen ma garanaysaa marka walaalayaal chance ka faa'iideysta meel walba joogtaa waan ku imanaynaa waan caawinaynaa WhatsApp groupka aqoon baa la isku wadaarsadaa waxyaalaha aan aqoon ba ka baranaya adoo waxaadan aqoon baad ka baranaysaa hadii matalan caawa adoo highwayga xaaji oo maraya taayir kugu dhaco maalin la weyd taayir baa ka banjaray meel fog baad joogtay airportkan fadhiyay feer baan sugayay inta aan damiyay ayaan xaaji aaday waa ninka ma sha Allah hardworkerka ah imu sugin markii aan u tagay shaagi already wuu bedelay laakiin anigu walaalkii waa u tagay waqtigeygii baan ka tagay hadda xataa $100 qaadi lahaa waxa iga fiican
meel fiican maan joogin meel fiican muu jooga meel wuxuu joogay khatar ah oo la isdilayo oo xabadu ka dhacayso warcadqadar iga soo gaar buu yidhi ma sheegayno meesha ma sheegayno laakiin meel fiican maan waxa weeye gaariga lagaa dhacayo telefoonka lagaa qaadanayo lagu oranayo akoonka waxa kugu jira soo dir wadanka sharci baa jira waxaan u yeertay cabdiqadar waxaan ugu yeertay inuu dhinaca ila fiiriyo anoo baalka bedelaya ma aragtay oo asagana sida askarta markay isku ilaaliyaan markuu gaarigii markay jid ku jiraan ma aragtay qoryaha intay qaataan ay ilaaliyaan dhinaca saasaan rabay gabar waxaan nala soo qayb gashay gabar oo la dhaho waxaan arkaa magaceeda inay tahay muqdisho gaal kusoo dhawo walaal noo sheeg magacaada iyo meeshaad joogtid walaal waa mahadsan tahay muqdisho hab iigu qoran Minnesota idinla deganahay uberkana waan wadi jira hadda waan iska dhaafay dhib igu dhacaawis waa ku mahadsantiin horta sida yacni iskugu xilqaanteen dhibaatada meeshan ka taagan dadana maanta dhan waqti gelinayo oo wixii ay ku shaqeynayaanna nin guri iska jiif uu qaadanayo oo lacagtii adiga shaqeynaysa qof guri fadhi uu kaa badsanay marka dhibka jiraa waxay tahay uberka waxaan wadi jira weekendiga 3 beri Friday Saturday Sunday inta kale shaqo kala haasta waxaa igu dhacday accident moogtahay accident weliba oo maalin kaliya 2 accident oo igu dhacday intaan accident igu dhacay Northeast-ga anoo qof wado baan baxay baarkinkii haddana accident kale ku galay uberkii waan wacday mi maqshaan waan ku maqlaa waan ku maqlaa accident baa markii 2 mar baa accident oo waan ku maqlaa two time adiga accident ahaan galay oo laakiin meelo iigu dhacay waa baxay haddana meel kale istaag dhib igu dhacay like waxay dhaheen gaarigayga waxaan ku sameynaynaa deductible-kaaga 5,000 waa inaad dhibtaa because it's separate accident aa loo sameynaya dhaheen because ma ahan hal accident marka lacagtii 5,000 inaan dhiibee noqotay bishii 2023 bay ahayd ilaa hadda gaarigayga maan sameyn waan diiday because of like 5,000 haddaan dhiibo maxaa ii sameysa oo dhiibta adii haddaa u bartahay صح waxay ii qabteen mala lacagteydina ayaga qaatay ma garanaysa marka dhibaatooyin badan baa dadkii haysta wallahi maalintaas ay igu dambeysay Uber wada ma wadi hadda gurigayga iska jooga صح ka kale oo full time haysta laakiin good dad badan moogta dad badan si qaldan u fahmaan Uber iyo Lyft-ga runtii horta dad waxaa jiraan business la haystaan gabdhaha badan horta ka shaqeeyaan caramel mise 24ka hatta mamooyinka markay shaqadooda ka baxaan rabaan extra money way soo fulaan honestly way gabdho badan aan wado oo Soomaaliya aan arkaa mar badan oo gaariyadan wadaan most of them dukaamay leeyihiin they depend a lot on inay wadaan they drive for Uber part time it's not only them but a lot of community diverse badan oo business oo waxyaalo badan wadaan Uber and Lyft so yaan loo arkin waxaan horta inuu yahay dad shaqa meel that certain people oo yani dad badan arkaysaa they just make judgment yani they judge you because you drive Uber Lyft wana a wrong way to look at it honestly si khaldan inay u fahmaan laakiin qofka marka isbaratin they understand what you do and waxa samaysid and they end up respecting what you do but anyway waa saxsan tahay saa sheegtay is a lot of challenges dad badana isku dayay inay wadaan wana markii dambana iskaga tageen and that's what Uber and Lyft want they want more people so galaan ee ka baxaan why because they can easily manipulate sameyn karaan dadka lacagta si ay u kala siin lahaayaan because if they have more drivers that means there is more drivers on the road there is less pay to the drivers because now they're dividing that amount to all the drivers and also that means that but and that's what they're trying to make sure that we don't get is we don't because if they had certain number of drivers driving at one point and then people can benefit but now you cannot because everybody is joining in there's too many people joining in driving Uber and Lyft and that is what is happening and that is the unfortunate part xaaji waxaan kugu darayaa walaal adna aad rabtaa aan rabaa inaad ogaato si wacan baad horta yeeshay 5,000 kama bixi kartid waa lacag aad u badan awishina dadku soo wada fahmi lahaayeen hadda movement qof baa qoray I am a truck driver Uber sometimes when I don't have a load because he's a truck driver because he doesn't have a load and I don't want to stay at home
You know, so those are the you know Yes, even truck yes. drivers. I've seen a lot of truck drivers. Marka hada waxyaalaha markuu business ka dhacay dad badanaa soo furan Uber and Lyft. But go ahead, sorry. waa run walaalka traaga wada hadda airportka appointkaas bariman ka hadlo maalin waxaanu tagnay meesha gawaarida laga kiraysto rental carka dadka Uber iyo Lyftrooda xaaji waxaad qabataa wiil ay ugu qoran tahay caalanka Soomaaliya iyo caalanka Mareykanka cali baa ugu qoran cali bay inuu soo galo rabaa baan malaynayaa ka ansar gare walaale meesha gawaarida laga kiraysto maalin la weyd annagoo soo booqanayn waxaanu aragnay dareewaliin taraag qaarkood wadaan iyo dad caadi ah laynka 3 hours baa laga yaabaa qofku inuu gaari sugo macnaha Soomaaliya waxa ku maamada cali hadduu tago cali kala imanaya Uber waxay gaareen hadda haddii uu ka tago qof they don't care qof kala imanaya sida waxaa sheegay easily bay akoonka kaaga xidhayaan waa ku eriyayaan waxba lagu sheegi maayo notice lagu siin maayo sharciga hadduu ku xidhigaa qofka marka akoonka laga xidho ama wax dhacaan sharcigu siduu yahay in la yiraahdo 2 week 3 week waxa ku soo cadee waxa samaysay haddaad keeni weydo akoonka waa laga xidhayaa marka waxa jira meeshan gawaarida hadda lagu kireeyo Soomaalida inta la fahmay ay qaarkood waxay leeyihiin sida la sheegayo weeye anagu ma hubno laakiin sida la sheegay dadka rentalka meesha ku koreynay laaluush baa la baray waxa sameynaya waa Soomaalida waxa lagu oranayaa gaarigii diyaar ma aha bas qofkii $100 buu soo qaadaya ninkii meesha joogo u dhiibaya gaari 2023 la siinaya hadda eeg anigu waxa laga yaabaa inaan 5 casho sugay lacagtii deposit laga qaaday nin hadda yimi baa iga hormaraya waa Soomaali innaga marka dibka isku wadna innaga waxaanu ka shaqeynaa Uber iyo Lyft inay adoonsadaan hadaynu gawaaridooda u dhigi lahayn hadii dadka gawaarida iskala sidaan iyo xaajo kale aanu damintan wadno nala qaato Uber iyaga miiska imanaya ta ugu dambaysa anu waxaan dadka kula taliyaa oo hadda u sheegaya war qofkii rentalka wadow tad gaariga iska dhigto ilaa bishii 3,000 ama 2,500 baa laga qaadayaa gaari aad leedahay soo qaado bishii oo dhan 500 iska bixi haddaad wiigii 500 samayso waa 2,000 bishii 500 si 1,500 baa kuu soo hadhay habeenka suuqa xun yahay wax kugu taagan ma laha oo gaariga inaad wado kuma qasbanid laakiin rental markaa wado waa inaad carartid si aad 5,100 ama 4,100 u samayso walaalayaal insha Allah waa guuleysanaynaa movementigan aawadna aan istaageerno dadka airportka joogo iyo dadka banaanka ka shaqeeya January 11 hadii ilaahay yiraahdo abka 1 o'clock laga bilaabo ilaa 7 pm aan damino for marka la gaarana airportkanu tagaynaa newsko dhan baa imanaya telefoonadu haynoo dansanaadeen maalinta ogow 6 saacadood haddaad $100 samayn lahayd insha Allah waqtiyada soo socday ka dambeeya ayaa lacag badan samaynaysaa habeenkii dhawada happy new yearkii telefoonada darawaliintu waa wada damiyeen aad bay taladeedu u qaateen waxaan idin tusi karaa hadda meel walba $30 plus surcharge baa la saaray rag baa yiri war habeenka suuqu down buu ahaa laakiin tagaasi dhowr taksiyo suuqa jooga dhirgay $300 baa la biliis qaad ma fahmaysaa inagu haddaynu Soomaali nahay way ismaqalaa way istixgalinaa laakiin walaalayaal arrintan aan ka faa'iideysano arrintan haddaadan adigu wadin walaalka baa wada haddaadan adigu wadin adeerka baa wada madanka midda kale ta ugu daran waxa weeye nin walba shaqo kale full time ku qabo dadka full time ku tahay shaqo kale oo aad benefit ka hesho ku qabo marka aad retire gaadho haddii aad self employment tahay waxba heli maysid xaaj ku soco marti badan aan la joogtaa lana soo qayb gashay oo Moqdisho ugu qoran tahay idea haya oo dhahay hoos u jooga okay 1 second Moqdisho cali soo qaba waan soo qabanaa hadii ina advice isiya maxaan sameeyaa maadaama gaarigayga in ii sameeynin Uberka waan ku siinaynaa advice and waxaan rabaa hal arin inaad marti badan aan naga soo qayb galay programka ku soo dhawaada kulligiin waxaan rabnaa inaan halkan programkan exception aan sameeyay maanta kulligiin aan idigu soo dhaweeyay halkan aad ka wada heshiin hal waxaan iga codsanayaa waa arin waxaan ka hadlaynaa u fiican mise arin guud oo Soomaali ah mise Uber drivers mise immigrantiga aan ka hadlaynaa wax fiican oo aqli ah wax oo walaaltimo ah wax advice aan baramna inaan ka hadlo af Soomaaligeena waa iga cafinaysa in si joob aan ahay saana ninkan af Soomaali ka baranaa hadda si u socoto laakiin waan baran doonaa dhib male laakiin dan guud aan wadnaa soo taas lahaan ku joojino respectfully yaan is aynin ya waxaan xun yaa is dhihin hata commentka dadka please
dameer iyo waxaas macno ma leh hadal fiican ma aha let's be respectful halkan ma aha shooyaasha caadiga dadka isku caaya ma aha mana aqbalayno it's not gonna happen and hal waxaan rabaa inaan ku daro newska business insider wuxuu soo dhejiyey January 6th article kan hadda soo baxay wuxuu soo qoray Uber drivers say job has become more competitive and that it's made their work less profitable. So that means waxay leeyihiin some Uber and Lyft drivers say it's become harder to make money over the past year. And they say the growing number of drivers, the growing number of drivers, increasing competition and declining pay. See, Uber and Lyft, they want more drivers on the road. That creates more competition. And that means less pay for all the drivers. So driving during the period when there are fewer drivers might help boost earnings. So anaka markaan off noqono dadka New York hadda aad ba u faa'iideysan sheegaysa article-kan soo qoray waa January 6 article-kan wuxuu leeyahay dadka hadda anaka aan markaan mudaaharaadnay oo New York-kii aan 200 oo darawal aan u sheegnay inay app-ka damiyaan dad badan aa faa'iiday darawal badan lacag sameeyay ma fahantay so that means maalintaas January 11 haddaan kulligaan isku raacno aan wada damino it's good wixii shaqeynaaye then it's up to but haddii aan sidii saxda aan u sameyno nimankan waan ka adkeynayna but go ahead waxaan kusoo dhawaynayaa waxaa horeeyey rural retreat go ahead where are you what's your name and hore u soco Assalamu alaikum Haji my name is Omar from Minnesota welcome Vipi mambo poa sana mambo poa sana I have 3 questions how will you balance the low prices you have to ask me one question we have a lot of people waiting one question yes go ahead okay I'll make it 2 how about that okay go ahead and make it 2 mine is just brief maybe in the same field okay go ahead the first question is why are we as immigrants why are we majority in this public transportation like Uber trucking and Lyft business okay that's one question I will ask you that then I have to write it down because I don't think I'll remember it but I will do my best go ahead the other one is in the world today technology is changing now we're seeing self-driving cars that are being used in public transportation prototypes have been tested in the trucking business also in the Lyft business in California how is our community prepared to transition to the technological jobs which might be the future okay very good two good very important and very good questions first question for me to answer your question and that I told you I'll forget that question so can you remind me again why are we majority in the industry okay here's why and this is just my analysis is I don't know people have different reasons why they drive for Uber and Lyft but this is my analysis I think most of people who drive immigrants who drive for Uber and Lyft is the reason why is it has to do with the family it's the wife working and the husband working okay and there is one advantage for driving for Uber and Lyft and that is it is flexible so you can come in anytime and you can leave anytime and you can make up your hours anytime that is one good thing about Uber and Lyft is that I can drive for 3 months right and I can decide I want to go to Africa I can just jump on a plane go to Africa and when I come back I can come back and drive again and you have a family dynamics you have 2 married couple and you both run a business and so what mostly happens is maybe the wife works in an office or the husband works in an office and you both want to make money and have an income and you're looking for that extra money and maybe the husband in a Somali Muslim setting I don't know about other communities I'm sure they do it differently but in Islamic Somali settings it's usually the husband that goes out and drives for Uber and Lyft and of course there are Muslim women also who do drive so I don't want people to misunderstanding what my intention but it could be different I just don't want to say the wrong thing and so you have that the dynamics of raising children sometimes case in point myself
you know, and my wife works full time. She works for a big organization here in Minneapolis. I run the business. I do. We have our online store and many other stores that we do distribution and stuff like that. But sometimes on the weekend, I want to go and get some more extra money. And so that is, an example of why some of these immigrant communities choose to do what they choose. They just don't. They are not able to go and do both of them full time, because who's going to take up daycare is expensive in America. You know how much daycare is. I mean, and to qualify for daycare, a certain income, for me and my wife, we don't qualify for daycare because our income is so high. They won't qualify us, so they cannot pay the daycare for us. And so those are the dynamics, and those are the why most of the immigrants community really and then you got single fathers, single mothers that are doing this to support their families, and they cannot do a full-time job. So when the kids are in school or the kids are in daycare, they can go and drive, or child support. That could be, but doesn't mean that we are majority child support, but I'm saying in some instances you have people that are on, want to pay their child support, so they do this. So this is how, I think my analysis, and that's how I look at it. I hope I answered that question. When it comes to technology and autonomous technology, I think, that's something is going to take a while. It's not going to happen in 10 years. It's not going to happen in 20 years, in 50 years and more, and now, most of this autonomous technologies that is being tested is not working the way it's supposed to work. There's a lot of malfunctioning, a lot of, thing. And Uber, by the way, is spending billions. Some of the profits Uber is making is spending a lot of money in trying to do the autonomous technology, where self-driving vehicles, drones that can fly people and all that. They're spending a lot of money there. That's why they're not paying us. They're taking so much money from our pockets and investing in these technologies, and it's not working out. It's taking time, and so yes, there is an option which is electric now. A lot of vehicle. There is actually a federal government incentive, where if you decide right now to go buy an electric vehicle, you're going to get $3,500 to you for just buying and going electric. So the government is trying to encourage people to go electric. So there is hybrid, which is Toyota is famously for hybrid. Hybrid is where you have part electric and part fuel, and Toyota is good at that. But you have Tesla and you have other companies that are going full electric. You can go buy a Tesla, you get $3,500 rebate for buying that. So Uber and Lyft, they're encouraging drivers to go and get electric vehicles as well. And they will also give you some money if you go that way too and decide to get electric. So those are things that are going to work. So I think, you're going to have people driving vehicles for a long time. It's not something that is a short-term worry for immigrants. I think in 50 to 60 years, then maybe that's something that conversation people need to have. But I hope I answered that question for you. Thank you. You have answered. The only thing I want to say was, since we are new to this country as immigrants and our level of education was low, the only job that pays better than a warehouse is the transportation department. Maybe that's why we are majority. Yes. I think so too. Thank you so much, bro. I really appreciate it. Thank you for coming. Yes, thank you so much. I know. Thank you so much. Okay. So, Ahmed Ade, Gorgor, and then you're next. اوكي السلام عليكم وانا سلام دمان magacayga Axmed waaye from Boston. علي السوقبه علي مو كجر هاي waxaan ka soo hadlayaa Boston. Yes, welcome bro. Uber driver waxaan ahay almost 7 years from Boston. shaqada meesha ka shaqo fiican waaye waa dhawahay shaqadaas horta mudaharaadka meel walba waa laga wadaa meeshan xatar banaanbax badan aan ka wadnaa waxa waaye Uber is not like last 5 years waxyaalo badan ay isbedeleen Uber hadda waxa waaye way ka dareen meeshan ilaa hadda waxa waaye anagoo gruubo badan Boston maalin walba banaanbax la sameeyaa waa la kacay horta shaqada wadiin waa ku farxay waana shaqo la soo dhaweynay adduunka waxa waaye dad iska hadlin sida rabaa laga yeelayaa marka waxa fiican number 1 shaqadaada wixii u daran inay ka hadishid mar walba marka waxa way howlahaasna waa lagu jiraa meel walba kulli hadda isteeda badan waa laga kacay dadkii hurdada hadda way ka wada kacaan sidii hore ma aha marka hadda sometimes qof waxa arkaysa 1 hour loo wada 100 laga qaado lagu siinayo 30 40
waxyaalaha ugu xun oo weligeed la arkin waxyaalahaas ka mid ah hadda nagu cusub marka waxa waaye Uber sida hore ma aha kulley baad damoor aan kacno damoor oo la hadlo damoor ay wax isbedeli doonaan waay laysa daada hadlin oo isku hurdid sida rabtaa laga yeelaya aad iyo aad thank you so much Ahmed walaal so hadda waxaad dhacday protest ayaa sameynaysan sax okay ma sameyseen mise weli mise waa kuwa kula tara jirtiin mise it's on waa ku tala jirnaa haddaan group isku aruursanaa haddaan rabnaa inaan banaanbax iyo waxyaalo badan inaan sameynade okay ma Somali immigrant badan ma Boston wada sidii Minnesota oo kale miya yes Lara Somalis they drive yes okay ma isla xiriirtiin ma is ogtiin okay so community-ha ugu badan wadaan Boston yaa waay ma immigrants ke ugu badan wallahi hadda Soomaalida u badan Boston okay good Soomaalida u badan waana cazumi kartiin waan iimaani karnaa urur marka iskugu imaatiin noo imaada and waan iimaanina will visit you and yes and waxyaalo badan aan soo wadnaa insha Allah we will connect and isla shaqeynayna so opportunity weena jira insha Allah brother insha Allah thank you so much and gorgor ku soo dhawaaw gorgor Ahmed su gorgor hore waxyar gorgor go ahead aniga ma rabo inaan idinku dheeraado time badan inaan ka qaato xaaji iyo wasalaamaya cabdiqadar ninka odaga ahaan soo raacay dhowr mar videoyaashiisana waan isticmaalay marka waxaan u maleynaa go ahead inuu isiiyey mar horaan videogiisa isticmaalay maalinta labaad hala demiyo taleefanada marka waa share gareeyey marka waan isticmaalay videoyaashiisa marka waxaan u maleynaa inaan meeshaas aan ku saaxanahay oo go ahead aan ka haysta asaga niyo horta waa mahadsantahay aad iyo aad adigaa mudan niyo aniga horta my own business a haystaa laakiin Uberkana waan ka shaqeeyaa normally habeenkii oo aan isoo gaaray videoga la deminayay telefoonka hala demiye la dhahay oo happy new yearka habeenkii cusbeed waan demiyey laakiin lacag badanaa la saaray 20 30 35 40 حتى واركاي 49 meel saaranta wiliga ma arkin 49 la saaray waxaan rajeynayaa adinka waxa haysataan shaqo fiican haysaan oo shaqo fiican qabateen xaaji iyo ninkan odaga labadiina waa mahadsantihiin halkan ka sii wada dadka Soomaalidana waxaan rajeynayaa inay idin dhageystaan dad baa waxa laga yaabaa intay idin dhageystaan hadalkiina aan qaadanin oo serious aan ahayn kaba soo qaad maanta waxa leedahay new telefoonada aan dimino telefoonada markaad diminaysid adiga dad baad u sheegaysaa dad baad ku leedahay telefoonada hala dimiyo si shaqadii loo qabto hawshiina loo qabto ayagana culays loo saaro because ayaga waxa ka soo noqonaya feedback ka soo noqonaya marka culays aad saartaan marka isku xirnaan community-gana waa u baahannahay oo TikTok iyo xogaa inaan TikTok waa communication oo mataqaana oo dadku u gaarsiinaya laakiin still waxaan u baahannahay strong communication u baahannahay dadkeena dhexdiisa ah oo community-ga Minnesota marka waa mahadsantiin aad u mahadsantiin intaasaan idin waday waxa kale oo aan rabay 11ka January 11 aniguna waan kula soo inkastoo shaqo aan leeyahay oo shawl kale aan leeyahay laakiin haddana si aan idin xoojiyo waan kugu soo biirayaa shaqada meeshaas haduu Ilaahay yiraahdo maalintaas inaan idin dhiirigeliyo halkaan idin kugu imid aniga oo aan idinku iraahdo ni waad mahadsantihiin hawl baad haysaan qofku markuu hawl qabto waad mahadsantahay haddaadan dhiirigelin ma helayo oo ma ogaanayo wuxuu qabtay marka intaasaan idin kugu imid waana mahadsantihiin walaal thank you very much aad aad kugu mahadcelinaynaa waxaan soo qabanaynaa hal mar isug gorgor waa mahadsantahay walaale Axmed aadna waa mahadsantahay sida aad sheegteen haddaan walaalka fikradda fiican keenay la taageerin horumar ma gaadhayno gorgor waa ku mahadsantahay wada shaqaynta iyo imaanshaha aad noo iman doonto maanta waxa dhacday qiso yar baan idinka sheekeynayaa waxaa jiray airportkan tegey dhowr qof baa waxay igu yidhaahdeen maynu iska dayno oo Uber inuu lacagtaba goostaa laga yaabaa waxaan ku yiri haddii uu lacagtaba goosanayo faraj kale Ilaahay furaya laakiin telefoonka haddaynu dimin wax badan baa isbedelaya sida uu gorgor sheegay habeenkii dhaweyd 40 30 29 bay meel walba saareen hadda ma garanaysaa dad waxaa jiray hadalkayagii iyo codsigaygii aan maqlin oo shaqaystay qofkii ugu badnaaba 200 sameeyay ama 300 subaxii akoonkiisu ma buuxin inuu haddana soo kacay ahayd baahidii wali waa ku taagnayd
soomaalida gabay waxaa jira oranaya dhashaaday sugtaa xaashidaad dhowrataa abid warcad quudhan intaad qaadan lahayd nolol fiican walaalo ku noolow $10 oo hadda aad ku qanacsan tahay waxaa ka fiican $50 $30 oo aad triibkii ku qaadid waxaa la rabaa wax adigana wax ku taraya customerkana waxba yeelayn taas waa taas gorgor waxaan leeyahay walaal noo imow oo ku soo dhaweynaynaa telefoonada wada haysaa nala soo xidhiidh axmed oo boston joogana waxaan leeyahay axmedow waxaad samaysaan isu kaalaya urur samaysta maamul iyo kala dambeyn samaysta gooni noo soo wac wixii aanu soo marnay iyo systemkii oo dhan waa kuu sheegaynaa iyo meeshii aanu ka bilownay siyaasiyiin dabcan waad leedihiin la xidhiidha dad badan baa jiro oo markaad horumarkaa samaysaan idinkala furfuri doona uber laftigiisu dad buu idiin soo diri doonaa waxa weye dagaal baa laidinku soo qaadi doonaa waa inaad isku dheganaataan dantiinu waa inay noqoto inaad uber iyo lifti la dagaalantaan oo xaqiina ka doonataan yaan soomaalidu isu muuqan soomaali cadow maaha meeshay joogaanba waa walaalo waa inaynu isku mid nahay hal dan leenahay danteennu waa in anigu faa'iido xaaji faa'iido adigu faa'iidid waxaa jira hadda rag afrika ku maqan markay yimaadaan horey gaadhay ka shidayaan shaqaday hore ka gelayaan hadda anigu shaqada full time-ka aan haysto waa inaan fasax qaato markaan rabo inaan fasax qaato laakiin uberkan muxuu ku fiican yahay hal mar baad dabaynaysaa meeshaa doonta aadaysaa qofku freedomkaasaynu meesha ku qabnaa iyo lacagtaa markaba aad sarifanaysid haddaad 500 samayso markiiba akoonkaad ku shubanaysaa jeeg iyo waxba sugi maysid marka axmed walaal wixii information wixii tala ah waa ku siinaynaa nala soo xidhiidh haddaa u baahantiin weydiin imanaynaa insha allah bidmillaahi kariim annaga waxaanu u soo kacnay oo diyaar u nahay qof allaale qofkii walaalkayaa midabku doono ha noqdo wixii aanu soo marnay inaanu ka caawino إن شاء الله إن شاء الله وما سنتين وما سنتين Assalamu alaikum, brothers. وعليكم السلام. وعليكم Welcome, brother. السلام. Welcome. Thank you, brother. And I just have a quick question. And I remember back some years ago when I used to live in Seattle, there was a big company that was owned by Somalis, and it took over the market basically in Seattle and other cities nearby Seattle. So they had huge market there because the Somali took over the business. They marketed their business, and that was some years ago. They had a website and all that. So since Minneapolis have a huge number of Somalis and they have the numbers, I can say, why doesn't the drivers or people comes together and creates a rideshare app that can start that kind of business, so that after I believe the rideshare, if they can be able to create like a rideshare, is that possible to do it? I know it can be costly, but it is very costly. It's possible, but it's costly. The licensing part of it for the city and the airport and the state, and just the app development, it needs a lot of work at the back at the end. This is not just a small thing that can be easily accomplished. But it can be done. There's nothing that is impossible. If people come together and decide they want to do this, definitely it can be done. So I will say, the possibilities are there, the chances are there, the opportunities are there. Is someone just to take on the step and do it? Someone started this from nowhere, and today you see it's a $60 billion company, both, and then 30 billion for Lyft as well. So the opportunity is there. I mean, there is a lot of successful rideshare companies in Africa. In Kenya, I've seen a lot of companies, Nigerian companies, Kenyan companies that are doing that. While Uber and Lyft are still in the market. Those people are getting a big share of the profit too. So this is even you go to the Middle East. I was just in Dubai the other day, and you see all these rideshare companies owned by individuals. So it's doable. It's not something that is difficult to do. It can be done. And I just want to let you know that. Thank you so much for that. Yeah, and so yes, you're saying the cost is really high. You're right. But if you bring all the people together, let's say 200, 300 Somali drivers, and you're talking about your employee-owned company. So like all the drivers invest in it,
and they drive for it, and then they just they come together to build the company, have the app, and then they just get rides with no fees and just a little bit of expense to run the app. That's what you're saying, correct? Yeah. Because that's a possibility, and it's always there, and people need to think about that. And I think there's one of the communities that can be successfully do that if they agree and they want to do this is the Somali community in Minnesota. They can definitely do it. Yes, especially if they have Yes. numbers. Can you give me a chance? Yes. Someone has a question. Go ahead. soo dhawaada dhammaan walaalaha soo dhawaada dhammaantiin. Yes, go ahead. I'm sorry. You continue talking. I was just accepting someone. Yes, if they have the numbers, let's say you find out the figures and the amount to create the app. I know it can be costly, but you have a huge number of people. Let's say, for example, you have 100 people, and if I'm just giving you a number. Let's say if the creation of rideshare app can be $50,000 for example, I'm just giving out the number, and you have all the people coming together, 50 to 100 drivers, and each one contribute, let's say $300. The amount will be it will be manageable, as you said. It's very easy. Yes, it's very manageable. Yes, it's definitely manageable. Welcome to the show, Ogur. I don't know how to say your name. Sorry. Urga Jannata, that means the smell of the Jannah, Okay, welcome, my sister. How are you? Assalamu alaikum, first of all. Assalamu alaikum wa Wa rahmatullahi wa barakatuh. alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. My sister, welcome. Thank you, Yusuf, for giving me a chance to speak. I'm in a group also, in the WhatsApp group. I hear everything we did, whatever we did on the New Year Eve. Yes, we see the result. Also, I went to the Uber office, which is yesterday. I spoke to a couple of our brothers, Somali brothers. First of all, I'm from Oromo side. In there's Ethiopian people who don't speak Oromo, or speak Amharic, and there is a Somali brothers that I seen. I talked to them yesterday, so they say, sister, there is nobody. A lot of people is not using a media. I told them, like, Yusuf Haji is on TikTok and Facebook announcing all this protesting things. They told me a lot of us, we don't use media. They say we didn't hear. So what I want to say is, if you guys have a big community, I know you do in Minneapolis, in St. Paul, but if you guys pass this message to the masjid, to other community area, that everybody can hear. They told me we didn't hear anything about this. I told them we are going to protest in airport also on April 11. They say, sister, even we turn off our apps, there's a lot of people who's gonna work. There is a West African people, Indian people. There is a lot of people who didn't hear. Yes, and I know we decided to do 1 week before New Year to turn off the app. Yeah. But now we have more time. I think yesterday we have Sahan Journal and other media. They took an interview from him and I. So it's everywhere. We have state representatives that have called us today, and they said they will support us. And also we have we're doing, and that's why we're here today. We're trying to tell as many people as we can, share this video. Yes, and we have also already. there is a channel, radio channel that Ethiopian and Somali sharing. I guess 903 FM. I guess. Oh, okay. Yes, we will. Yeah, we'll get you that. can Yes. pass this message on the radio also, that everybody can hear.
Yes, we will do. We'll do. Yeah. Thank you so much. You That's really what think? that's the thing I want to tell you guys. Thank you for giving. Are you in our WhatsApp group? Are you Yes, following? I am. Okay. What Yes, is I your am. okay? And then so say hi to me Okay. so I can talk to you more and you know I can welcome you and we can have you on the show sometimes talk in Oromo, please. Inshallah. Yes, Yeah, we want you. let me say in here in Oromo too. Say it. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obalayan khiyakan Oromo taatan. Warin Ethiopia raduftan hundinu. Ubaritu malaka gari khafalan jirre. So ubari rati dalagu jirra akka malaka gari nuf khafalan future afi. Waan amma osoon taane waan fuulduraa tolchuufi like sa'aatti qarshi 15 faa qarshii deemtee dalagaa hedduu daleedee maayileja keefixxee gaaza keefixxee qarshi 15 fi qarshi 20 waan sa'aatti nu kafalaa jiranii jecha magdaanalilleen qarshi 15 hin kafalu amma sanii ol kafalaa sanii fi protesti godhuuf deemna January 11tti airporti protesti godhuu deemna kottaan wajji join godha absii keessan turn off godha inshallah akkasitti wala garraa rabbiin nuuf mijeessu waa hundaahu kottaa dhiyaadhaa nu wajji protesti godhaan isinin jaa salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Fire. Galatomi. Assalamu alaikum. Before you leave, I just want to say thank you. We watch you in the group. You are very active. Inshallah, say hi to us. We have a list that is ongoing. Yes. I don't know if your name is Yes. on the list. Make sure you put your name on the list. You need to come on January 11th too and tell all our Oromo brothers and sisters to come. Yeah, and then the last thing, sister, is, as you said, a lot of people are saying no connection, no news, nobody is spreading the word. There are a lot of people who don't want us to strike, who don't want us to give you information. So they're lying. Some of them could be lying to you. So don't listen. The only good people you hear will be us. Yes, inshallah. Yes. So there's a lot of people out. Stand together, inshallah. Inshallah. Make sure you say something in Oromo in the room in the WhatsApp group. Don't keep quiet and reach out to me. I want to get the message out. I need to meet with you so we can create a video in Oromo and talk to people and make sure people we are successful on January 11th for the protest. Inshallah. Thank you so much. Adi Nigumat Alina wa Yusuf Haji. It's me again, Yusuf Haji. Thank you for joining us. I want to again repeat our plan of action for January 11th. We are going on a strike. We are going to be offline on January 11th from 1 p.m. to 7 p.m. at Minneapolis International Airport. And also starting from 5 p.m. on the same day, we are going to be protesting out in Terminal 1 from 5 to 7 p.m. And we go home and we shut down the airport. We shut down anybody arriving, and that's the end. And see what happens then with Uber and Lyft if they're going to, what they're going to do. Hopefully they come to the table and we can negotiate and get a better deal for all Uber and Lyft drivers in the state of Minnesota. And also we want to put pressure on the politicians. We want to put pressure on Governor Tim Walz. He's the one that vetoed that one bill that we had, and that we have. This is the reason why we're doing what we're doing. We have had leaders in different groups who are too nice, or maybe they have been bought, or maybe they're under the pockets or influence of other people. But we're gonna get this done and make sure that we do it the right way. This is thank you, brother. I like your style. Thank you so much. We're gonna leave it at that for today. And conclusion kasame, and then we finish our show. Conclusion ka walaalayaal waa mahadsantihiin inaad caawa nagu soo biirteen. Caawa qura ma noqonayso. mar walbo aan waqti helo idinla hadlaynaa online baan idinku imanaynaa magaaladana waxa ka socota movement badan airportkana laga helaa waxa weeye waynu kulmi karnaa laakiin meesha Janiska ugu fiican bishan 11keeda 1 o'clock to 7 p.m. ayaynu kulmaynaa maalintaas qof walba waxa aad hayso dig sida dadka qaarkood yiraahdeen shaqooyinkan ka soo tagayna ka soo taga haddaynu isu nimaadno walaalayaal waa guuleysanaynaa waxa weeye almost meeshii baynu joognaa almost guushii gacanteenu ku haynaa telefoonka inaga ale gaariga inaga ale timekeeni way wax walba shaqadan inaan ku raaxaysano oo baynu u wadaa mooye ma aha in inaga laynagu xukumo maskaxda aan free ka noqono haddaynan midoobin haddaynan danteena garan
waa la sidaas la inoogu shaqaysanayaa Yusuf Xaaji waa mahadsan yahay hawsha fiican inoo hayo walaalada na daawanaya warka sii gudbiya TikTok follow gareeya telefoonadeyda halkaas ay ku jiraan qofkii su'aal qaba hana soo waco saaxiibka qof walba waxaad isku daydaa maalinta inaad saaxiibka iyo walaalka iyo adeerka keentid qof walba qof kale keen insha Allah dadka dhan waa gaarsiinay waad mahadsantihiin 100% TikTok-tana hal follow gareeyo inuu warka u kala qaadano qofkiina helin fursad inuu maanta ku hadlo programka 90 minutes ayaan ku jirnaa waa already late habeen gobolka Minnesota American sorry next time please show ka soo qayb gal waan ku jirnaa every night till the day of the protest waan joognaa waa program badan oo soo wadnaa it's going to be a normal thing English iyo Somali وانا isla joognaa thank you so much waa Yusuf Xaaji Daily oo maanta naga soo qayb gashan aad iyo hadan magacalina dadkana hadan wax siinayeen oo bixinayeen reflowerka aad iyo anigu magacalina dad kule maanta ku jira waxay bixiyaan mala kuwa hadda soo galeena waxna siinayeen thank you very much oo kuma thank you we appreciate that we need the support waa u baahanahay wixii flowerka iyo giftigana siinaysin waa u baahanahay kulli waxay aadaysaa communityga Uber iyo Lyft aan siinayna ku sadaqaysanayna hadday noqoto flyer hadday noqoto hadday noqoto flyer hadday noqoto posters hadday noqoto email waxay noqoto website loo dhisaa everything xagga aad geenina insha Allah waa Yusuf Xaaji at Xaaji Daily aad iyo aad nagu thank you very much yalla salaam hawshana kala kici aad iyo aad waxaan rabaa inaan soo qabto nin la yiraahdo ayaan le oo soo ay telefoonku naga soo wacay thank you very much for the roses ayaan le aad iyo aad ku mahadcelinayna so ku soo dhawaaw oo ku soo qabana 1 second yarkana naga codsaday inaan soo qabano waa big supporter sorry we don't want to make one exception sameynayna only for now insha Allah ku soo dhawaaw 1 second ayaan ayaan le ku soo dhawaaw السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام waxaan igu dhahay VIP ga inaan soo galo waay soo ku soco مجنب أكو سلامي jomba karibu صنت سانا قدر أكو سلامي كازم أكو سلامي ورتا أرنتا ملفع أنا كودين قدر يعني نكي سوا أساسنا أرنتان رجع كلا جبي رجع كح كده بقرتي صح ورجع عرف أنا ودي هذا وأركا هنا برمت كيشين مدهرات السين keep going endelea vizuri endelea mbele mbele asante ayaan le marka aad ani salaamaya insha Allah hadda ka soo qayb gal karo ka soo qayb galaya kulli ma joogo ninkaas iga warqabo صح ragii la dagaalama nahay mulda qadar aad halkan soo hadda aan ku saxo wax yar wala ador ali meesha wana okay wixii dhacay we are moving forward I know هذا ها وحرمنا دن وحدنا oo dan guud oo dareewala yes ina joog zuursaana kaka tandele mbele asante marka aad u soconaynaa marka qadar iyo rag badan iyo asxaab badan وصابكنا كجرنا سماها وكجرتا عملاء وكجرتا لكن the more importantly waxa waaye showga maanta kale xmaa tomorrow no halena berida mo halena waa wadna don't worry we got it keep going kila siku waxaad follow graysin Abdulqadar TikTok-kiisa please dadka inta ku jiro oraan ahayd inaan ii sheego you have to follow Abdulqadar TikTok-kiisa follow him please ha lagu yaaco and ninkan ila fadhiyo هلو ياو thank you so much عادي هذا نقول علينا ويوسف حاجة ديلي until next time bye bye ان شاء الله هذا ني سلام